soo dhawaada asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan. aad baan idin salaamayaa. soo dhawaada. soo dhawaada asxaabta qaaliga ah. soo dhawaada. warar badan baan idiin hayaa. xaalad khatar oo kusoo socota magaalada muqdisho berito. dad badan oo Soomaaliyeed oo la rabo berito in lagu xasuuqo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. soo dhawaada insha Allah. soo dhawaada. soo dhawaada insha Allah. فرد شغلة عندي جمع حناكين وعادي آد بانين وذا السلامة يا سودا وادا آد بان لما تيجي السلامة يا شعب الصوماليات حالة دقدقة حالة كسوس عطى بريتو الصومالي ده عاصمة الصومالية مقدشة شعب الله ربعين لقول لايو والله حسوق الله بدأ نعبد معارض يا محافظ من خير قبل مجرته سودا وادا مالك السجوتان سودا وادا غير دام وري سو دواده هاد بان الدين سلامه يا دمانتين انتينا ku jirto dhan barnaamijka share garay insha Allah bidni Allah kariim suusi gaar asxaabta kale insha Allah soo dhawaada insha Allah bidni Allah kariim waan bilaabaya 5 daqiiqo ka bacdi aniga laftayda waqti badan ma hayo 5 دقيقة كبعد أيام بلابة يا سودا وادا أوكي عبد القادر نور روحوا ده قفكي تمها كاسو جرشيقة وحنسينا يا لبكون أو دولار ما ها لبكون أو دولار أوكي عبد القادر علي النور وحنكوشة يا تمها ناد أركيسي دب أمريكا قبل كان جوجا مينيسوتا أنت وتجين إن هذا ديارة وراعي أو تركي جو آدي أو تيجي وقصي oo hotel u dagay oo ku bixiyay $7,000 $7,000 bay ku bixiyay dadna diyaarad bay u raaceen sitama lagu soo abuuray adna waxaad leedahay inaad 2,000 baan bixinaya aan ka jaro marka inaad xaasidnimada intaas leeg ilaahay baan kugu dhaarshay xaasidnimada inta leeg Cabdiqaadir oo inaad yaro iga daa rag baa diyaarad u raacaan ku yiri madaxa loo soo durduray dhiig baa ka soo daatay ku hotel bay dageen tigid bay u goosteen دكتور بيل عكسيين $8,000 $10,000 baa kaga baxay adna waxaad leedahay in adeero gacali aan ka jaro dadna diyaarad bay u raaceen marka in adeero timahan arkays in adeer qarash badan baa galay wala nafaqa lagu saaran qarash badan baa gala waxa laga yaabaa in qof Afrika jooga bishii uu masruufta inay gasho oo lagu beero oo nafaqa loogu siiyo marka adna waxaad leedahay ka soo jaro Cabdiqaadir in adeero iga daa Cabdiqaadir Cali Nuuro aad baan idin salaamaya dhammaantiin shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan barnaamijku waa inoo bilaabayaa 5 minutes ka bacdi baan inoo bilaabayaa barnaamijkeena haddii Ilaahay yiraahdo soo dhawaada aad baan idin wada salaamaya meel kasta joogtaan aad baan idin wada salaamaya soo dhawaada wallahi billahi Khadija Ali Sharif عبد القادر بي waxay siisay jawaab waalan ninkii lahaa timaha ka jira waxay tiri sax timaha iska hel maaha been kuma sheegin wallahi ka jaahil bixi wallahi Khadija jawaab fiican baad siisay aad baan ku salaamaya okay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd انت مقعيga muuqay taqaanaba shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waa walaalkiin Cabdixakiin Cusmaan Nuur oo ku magac dheer Sheekh Soomaali ee ka xarta Sheekha Minneapolis Minnesota inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba inta ay nacab inta ay jecel iyo inta ay taageersan iyo dhammaan inta iga soo horjeedo oo dhan waxaan idinku wada salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan idin leeyahay dhammaan meel kasta joogaan shacabka Soomaaliyeed ilaahay hadan xafido dhibaatadana Allah idinka ururiyo oo Allah idinka badbaadiyo wixii dhibaato idinku wada wadankeennina ilaahay dawlad khayr qabta hasiyo nabad iyo bashbash iyo barwaaqana Allah ka dhigo qurba joogteena
dhibaato fara badan ayaynu ku haynaa wadankii dhibaato fara badan ayaynu ku haynaa wadanka gudihiisa youtuberada fiyuga raadiya iimaanka beela ee halkaas u dhintay dadka facebooka fiyuga ka raadiya ee lacagta ka raadiya ee qurbaha jooga ee guryaha ku xiran wallaahi bilaahi tallahi bayna u danaynayn dadka wadankii jooga waxba yaan been la isku sheegin waxba yaan been la isku sheegin marka aad soo wacdaan ee geeriye dhacdo telefoonka ayuu idinka dansanaya message bay idinku sii daynayaan qof $100 idin soo diri karaa ma jiro maanta barnaamijkeegan maxaan u soo galay maanta barnaamijkeegan wuxuu ku saabsan yahay digniin ku socota shacabka reer muqdisho berito oo bishu tahay 19 maalin jimco ah waxaa la iclaamiyey oo mucaaradka dowladdu ay iclaamiyeen mudaharaad lagaga soo horjeedo dowladda federaalka ah maanta anigu uma hadlayo mucaarad iyo muxaafid midna dowlad aan taageeraya haba yaraata aan u soo fariisto inaan taageerana ma jirto labada dhinacba waxay damacsan yihiin inay qaraxyo ka ridaan mudaharaadka oo dad lagu laayo labada dhinacba muxaafid iyo mucaarad labadooduba dadka la isku hardinaya ee lagu dhexlaynaya dadka waa dadka shacabka ah ummadda reer muqdisho Soomaaliyeed waxaan uga digayaa in ay berito ka dheeraadaan mudaharaadkaas ayna isku tagin sababtoo ah kuwa dowladda sheeganaya iyo kuwa mucaaradka ahiba labadoodba shacab uma turayaan Soomaaliya runta aynu isku sheegno car waxaad ii sheegtaan dadka berito u soo diyaar garoobay inay goobta masiibadu ka dhacayso yimaadaan ee Soomaaliyeedo ee reer muqdisho waxaad ii sheegtaan nin mucaaradka nimanka ah ee muqdisho jooga nin ilmihiisii intuu soo kaxeeyay ay ka qayb galayaan mudaharaadka ma jiro kuwa dowladda ku jira ee wasiirada ah ee dowladda taageersan ama xildhibaanada ah waxaad ii sheegtaan nin ilmihiisii intay muqdisho joogaan ay berita ka qayb galayaan mudaharaadka ma jirto waxba mid halkana fahad la yiraahdo wuu soo qaylinaya waa lagu wasaabu leeyahay sidii nin raga u hadal saaxib gacali sidii nin raga u hadal qurbaha dadka jooga ee youtube-yada iyo facebook-yada ka qayliya dadkiina Soomaaliya jooga khaasatan muqdisho jooga gudaha caasimadda jooga ee maalin walba cadowgu qarxinayo wallaahi oo billaahi oo tallaahi baan idin haynin wax wanaaga idin ma hayaan view-ga youtube-ka uu ka helayo iyo view-ga uu facebook-ka ka helayo ee shilimada uga soo dhacayaan ayaa uga sharaf badan dhiigga daadanaya ee caasimadda muqdisho ku daadanaya runta ha la isku sheego waxbar waxaa la yidhi runtu raggay ka nixistaa runtu dadka ma jecla nimanka dowladda ku jira Soomaaliyeed xildhibaanada ah ee ama mucaarad ama muxaafid ahow ee muqdisho joogow ama farmaajo u sacabtuma ama ka soo horjeedo nin awlaadiisu muqdisho joogta yaa sheegi kara oo berito mudaharaad ka qayb galaya carfarta taago ii keena yaa sheegi kara nin awlaadiisu joogta ma jirto kulli Turkiya iyo Yurub wada joogan waxbay wada baranayaan jaamacaday ku jiraan wiilka berita muqdisho ku dhimanaya ee berita muqdisho lagu dilaya waa wiilka bajaajlaha ah ee ilmo agoona alma inna awaalkii ka dhintay ama aabihii ka dhintay ama hooyo cada ama oday waa yeelahayo weey maanta anigu uma hadlayo mucaarad maanta anigu uma hadlayo muxaafid maanta anigu farmaajo taageeri maayo maanta anigu mucaarad taageeri maayo runta ayaan maanta Soomaaliya indhaha idin ka saarayaa ilaahay baan idinku dhaarshay dadkiinaan dibadaha ka qayliyo ee youtube-ka view-ga ka raadinayo qolalka Yurub ku xidhano ee view-ga raadinayo wallaahi baadan hawiyana u sacabtumay naseexo u sameeyeen daaroonna naseexo u sameeyeen isaaqna naseexo u sameeyeen ee waxaad u sameynaysaa nacalad ha kugu dhacdo iimaanka Allah ka qaaday view-gaaga ayaad u sameynaysaa si aad shilimo uga heshid youtube-ka marka berita dhaawac ama geeri ama baaba u yimaadana telefoonka ayaad ka tansanaysaa message-ka ayaad ku sii deynaysaa marka lagu soo waco ummadda reer muqdisho walaalaha reer muqdisho dadka masaakiinta ah ee la khaldaya ee berito la leeyahay isku soo baxa mudaharaad baa dhacaya waxa imaanaya qaar ku soo horjeeda kuwa dawladda iyo qaar taageersan waxaana lagu dhex qarinayaa qaraxyo waxa la rabaa labada dhinacba inay dhiiga daadanayo berita ku eedeeyaan in dhinacan kala sameeyay berita meesha geeri badan baa ka dhacaysa berita meesha qarax badan baa ka dhacaya hal la iska jiro Soomaaliya dadka reer muqdisho
dadka reer muqdisho joogow idinkoo aan qabiil iyo midna aanan carabaabaynin waxaan idin leeyahay berrito waa maalin jimco ah waa maalin jimco ah soo cibaadaysta gelinka hore cibaadadiina aada salaadiina iyo waajibkiina soo guta businessyada xidha soo ducaysta ka bacdina businesskiina furta si baashaala oo nimco ay ku jirto barwaaq ku jirto nabadgelyo ku jirtana ku noolaada bilaal dacal wuu qaylinaya halkan uu ka qaylinaya waxaa laga yaabaa inuu leeyahay Facebook YouTube ama uu view ku raadinayo dadka geeridiisa aynu isku sheegno runtana aynu indhaha iska saarno koonfur waxaa isku hardinaya dadka koonfur isku hardinaya ama hawiye ha noqdo labada reer horta ugu dhibaatada badan ee Soomaali dhibaatada ku haya haddaan maanta been la sheegin waa hawiye iyo daaro hawiye iyo daaro ayaa koraas faash waxaan saaraya blog isu hawiye iyo daaro weeyaan labada reer ee maanta Soomaali dhibaatada ku haya ee Soomaali ka dagilaadahay war ilaahay baan idinku dhaarshay ra'iisul wasaarihi waxa la siiyaa hawiye madaxweynihii waxa la siiyaa daarood madaxweynihii hawiye haddana la siiyaa ra'iisul wasaarihii daarood baa la siiyaa war ma dhakhtar baa u qoray war ma suurad xadiisa oo ku soo degtayba in marna madaxweynuhu daarood noqdo ra'iisul wasaaruhuna hawiye noqdo mar ra'iisul wasaaruhu inuu daarood noqdo madaxweynuhuna hawiye noqdo ma suurad qur'aan oo u soo degtayba koonfur labada reer ee Soomaali dulmiye ee baabi'iyay ee laga dagilaayahay ee maanta ummadda maanta waxa suuqaya waa hawiye iyo daarood maanta runta aynu isku sheegna aynu wada fariisano Soomaali dulmi ayay ku hayaan hawiye iyo daarood Soomaali dulmi ayay ku hayaan beelihii kale ayay dulmi ku hayaan iyagiina dulmi bay isku hayaan daarood baan isku nixin oo isdulminaya dhexdiisii hawiyaan isku nixin oo isdulminaya فاطمه وسو واحد هذا ما انت واد عبسنتها ولي حتى سيجار ما عب والله حتى انا سيجار عب عندنا خمر بعد كذا اللهم من جينا سيجار حتى ما عب هذا خمر عبي لها وجهي كم مقله هاي اما ان مخدرات استعمالها فنسكي كم مقله لك الحمد لله اللهم اني لك الحمد الكثير الهي ما تسكر صومالي labada reer ayay Soomaaliya ka dagilaadahay hawiye iyo daarood ayay ka dagilaadahay maalin walba waxa dadka laynay ee dadka xasuuqayana waa hawiye iyo daarood iyagii baa marna shaati shabaab isku soo gashada marna shaati mucaarad isku soo gashada iyagii baa dadka xasuuqa iyagii baa isku dawladeeya dadka masaakiinta ee shacabka ee meesha lagu dulminayo ee la baabi'inayo ee la raba in la xasuuqo war ummad yahay reer Muqdisho بريتو مظاهرات كاسكا إلالية هنا تغينا مركا وننتو ويل مسكينة أو بجاجلها أو عرور أغواني كوري كوهي كمو سنتي منين ايغان فيوغر هادينا اما ايضا فيوغر هادينا يوتيوب كنتبتي كمو سنتي منين معارض كان وسخا المهيس التركي كجرا كمو سنتي منين نينكا الدولة كجرا التعلم كا المهيس جامعات كجرا وحو كان انتي قويس كيسا وحو نكبابا اي قويس كيسا وحو دمك قدامي يا قويس كيسا Soomaaliya dadka reer Muqdisho shaydaanka inta iska naartaan okay koraas waa qabanaya koraas iska ina mid kale iska soo sameeyso Soomaaliya hawiye iyo daarood labada reer ee Soomaali laf dhungashay ku noqday weeye waa kansar iyo AIDS hawiye iyo daarood waa kansar iyo AIDS ummadda Soomaaliyeed maanta meesha joogto waxa uu istaaray daarood dhibaatada keenay hawiye dabkii buu sii raaciyay iyadoo dawladdu jirto oo wadanku nabad yahay ururkii ugu horeeyay ee baxay ee yiri SDF baan nahay daarood ahaan majarteen bay ahaayeen hawiye isaaq baa ka daba cararay raxweyn baa ku xigtay ogaadeen baa ku xigay war ummadan waxa kansar iyo ayriska kuwa waa hawiye iyo daarood runta la idin sheegaya Soomaaliya Xasan Sheekh Ali hal digniinaan ku siinaya wixii ka dambeeyay daaqadan ka tuuraya ummadan waxa baabiyay waa hawiye iyo daarood halkan war maanta nin dadka YouTube-ka ka qayliya ee qolalka madow ee Yurub ku xiran ee view-ga idinku raadinayo dhiyutin aaminsantiin in maanta nin Yurub ku jira oo guri ku xiran oo view raadinaya in u danaynayo wiil hawiya ama u danaynayo wiil daarooda no wax walba waxa ugu muhiimsan view-giisaas uu helayo ama la isku dir ama waliba waxay ugu lacag badan yihiin dadka YouTube-ka soo gala waxay ugu lacag badan yihiin
war yuusuf ismaaciilow anigu farmaajana ma taageersanay halkan iska dhig adeer gacali runtaan kuu sheegaya xaqiiqadan kuu sheegaya nin mucaarada ama dowladda ku jira oo muxaafida ama ka soo horjeeda oo waxaad ii keentay caruurtiisa muqdisho joogaan oo xabaddu ka duldhacaysa mudaharaadka ka qayb galaya ma jirto nin kastaa dantiisu wataa hogaamiye kasta oo soomaaliyeed oo siyaasi sheeganaya nacalad ha ku dhacdee dantiisu wataa nin shacab u danaynaya ma jiro nabad ayaa naas la nuga leh xabad iyo qarax iyo dhibaatana ummadda uma taag hayso soomaaliyey dadka reer muqdisho berrito iska soo cibaadaysta oo waajibkiinnii salaadeed guta marka aad ka soo baxdaanna ducaysta oo baashaalo oo shaqooyinkiinnii furta ha isku tegina mudaharaadkaas wallaahi oo bilaahi oo talaahi dad baa lagu laynayaa labada dhinacna waad ogaan doonta xitaa kaba soo qaad xitaa haddaan wax kale ka dhicin oo hal qof ku dhinto fiiri hal qof uu ku dhinto kaba soo qaad haddaan wax kale ka dhicin oo hal qof ku dhinto halkaa qof qoyskuu ka dhintay ee soomaaliyeed qoyskuu ka dhintay ee soomaaliyeed dadka youtube-ka soo galaya diraya sacabka tumayayo ma masruufasaan waa maya ilaan wiilkan berito haddii hal qof xitaa uu ku dhintay kaba soo qaad waxbaba kama dhicin hal qof baaba ku dhintay halkaa qof meeshii uu ku dhintay qoyskiisaas ninkan viewga ama naantan viewga raadinaysa iyo commentiga iyo like sheeg karo ma masruufasaan waa maya ilmaha farmaajo waxay raaxaysanayaan qurbe waa run xasan cumar waa run farmaajo ilmihiisa muqdisho ma keenin car ha keeno oo dowladda ha taageero ha sacbiyaan ma keenayo xasan culusow iyo sheekh shariif ilmahoodii ha keenaan aaway ilmahoodii cabdiraxmaan cabdishakuur aaway ilmihiisii aaway farmaajo ilmihiisii waryaa dhegaysta waxyaalaha aan ka yaabanahay waxay ka mid tahay war qabyaaladan war anigu waxaan ka imin waddanka yemen oo qabiilka looga dhaqmo si aanan weligay arkin barnaamijyo aan idiin soo sheer garayn doonaa jira oo waddankaas dhaqankiisa aan ka helay laakiin qabiilkoodu muxuu yahay qabiilkoodu wuxuu yahay waxba isku tarayaan innaga waxba iskuma tarno waan isku baabi'inaa qabiilka ma been baynu isku sheegnaa waynu isku baabi'inaa qabiilka maanta ninka dhulbaantay ee in adeerkaya dowladda ku jira maalinta wax raba wuxuu leeyahay ii sacabi laakiin marka u sacabiyo xilkeela albaabka iga xidhanaya ima yaqaano albaabka iga xidhanaya markaa ninkan aad hawiyenimo ugu sacabtumasid ama ninkan aad daaroodnimo ugu sacabtumasid runta marka laga hadlo kuma yaqaano maalintu xilka heraana kugu dambeeya xasan sheekh maxamuud yuu u qabtay wax sheekh shariif yuu u qabtay wax farmaajo yuu u qabtay wax waryaara runta hala isku sheega miisna hala isla yimaado soomaaliyeed weliba dhibaatada waxaa wada dadka qurbaha jooga ayaa dhibaatada wada talaagadiisi baa u buuxda orange juice baa uga buuxa juice baa uga buuxa qudaar baa uga buuxda halkaasuu facebook live uu ku jiraa ama snapchat uu ku jiraa ama view raadinaya leeyahay hala gubo hala ololiyo xaqiiqada dhabta aynu ka hadalno hawiye iyo daarood dhibaato weyn ayaad ummadda ku haysaan shicib iyo siyaasiba social media waxa isku eryanaya ee isbaxsanaya waa hawiye daarood soomaaliya koonfur waxa isku eryanaya waa hawiye daarood madaxweynihii mar iyagaa noqonaya daarood baa noqonaya ra-iisul wasaarihi hawiyaa la siinaya ma qancayaan madaxweynihii baa hawiye noqonaya ra-iisul wasaarihi baa daarood noqonaya ma qancayaan xaggee u socotaa suusa shukri farmaajo dhaw laakiin farmaajo ha dhaco anaaba ku dhahaya haba dhacaba laakiin ka aad wadid baa qabiil ah eygaan aad wadid isna waa qabiil isaguna wuxuu rabaa wax meel uu fadhiisto laakiin dan kuuma gelayo xasan sheekh waa ku banaan bixi jiray yes farmaajona waa ku banaan baxay haddii la keeno yes sheekh shariif waa ku banaan baxay yes kulli waa ku banaan baxay cidiga cilin samayto because xasan sheekh iyo farmaajo iyo kulli iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sheekh shariif kulli waa daalimiin yaa diiday war maruntaan isku sheegnaa war aynu xaqiiqada isku sheegno war nin siyaasi oo soomaaliyeed ama mucaarad ama muxaafid oo ilmihiisu maanta muqdisho joogaan ma jirto
farmaajo waxa uu degan yahay fiilla Soomaaliya ciidama ilaalinaya ilmihiisa mu keeno wax kale iska laaf sanqadha xabada uma ogola inay maqlaan sanqadha xabada inay ilmihiisu maqlaan gow ay maqlaan yuudinaya in niyadu ka xumaato banaan u saar iska laaf xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sheekh shariif idiseen runta yani waa iyaguna waa seen waa daalimiin ama daaradaada ama isaaq ahaado ama hawiyahaado kullu waa daalim siyaasiga Soomaaliyeed waa daalim وظالم إلهي كفرت أنا حشونين اسكلاف وحكلا فرماج الميس وموكلا إنا يسقط حبضة مقلان إنا كل إنتان اسكلافه حكينا في الصومالي هذا الجي مدة جينية دي بدو دجي يسيبها دقت العقد بو شقينا يا حسن شيخ محمود الميس واكحي العقد بو شقينا يا حكينا مظاهرات بريتو شيخ شريف حكينا الميس كل إنتان عبد الرحمن عبد الشكور كل إنتان وريانا هوية يطارودو والأمة إلهي دبات كويسان صومالينا دبات كويسان صومالي هوية يطارود كنسر يأيرس بيكون نقضي إلهي سبحانه وتعالى لماذا أسران أمة حققبتو كودي تبدو جوغا وقايلين يا فيو برادرية كودي تبدو جوغا فيو برادرية هوية يطارود وما بأفكو ساسرية فيو ياي تاوضاي كودي تبكي جوغا وقصية حقاء وصعطان حاجة وصعطان حاجة الله وضع أمتان حاجة الله صعطان مين الله يعني لما ده خير أمتي ورئيك وحسكم موكلا هوية دارود وحما موكلا دارودنا هوية وحما موكلا هوية دحدي سيسكم موكلا ما أنت نين هوية ما ده نقضه متكلا قايلين يا ما أنت من دارود نقضه من دارود قايلين يا انت وصعطان انت أمتان وطان أمتان انت وطان لما ده أسرار أمتي وادبه ورما صورة قرآن والصوت تكتب إن مدحوينه دارون نقضه رئيس رساله هوية نقضه إن مدحوينه هوية نقضه رئيس رساله دارون اسكو كالورو رجال ما صورة قرآن والصوت تكتب يا أقرأ لما ده خير لما ده خير يا أقرأ ما نختار بأقرأ ما صورة قرآن والصوت تكتبه دل كان مياه أمت كلا الصومالية تقنين ورعاوي قبوي ورعاوي إيري ورعاوي شاشي ورعاوي تدكي كلا أودن كان تقنين آوة تدكي كلا ودن كان دقنا آوة تدكي أمدان تدكي هاي الصومالية كلا آوة أمد الصومالية إيرين مقدشو بريتو واحد إذن كدقيا إن آد مطهرات كاستكتان إذن كما قوض من وشقين يرهين إنو كل انتو والمسكينة بجاج وطا إنو كل انتو قرح يدي يمان وحن لقرحنا يا خاتيا بالله فيريا تذكر هين قدها كسغنو قفك قربها جوجا محو كو دقيق كرا او كلي ان سي كرا marka dhibaato idin ka dhacdo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ilaahi wa nahariis intaas qaraxba maanta ka dhaca ilaahay samir iimaan hay naga sii waa taasi kaliya idin ku deeqaan taasi kaliya ayaa idin ku deeqaan isnad inay idin ku deeqaan inay lacag idin soo diraan kuwa qurbaha jooga ee video YouTube-ka ku sameeyay maalinta ugu lacag badan yihiin dadka qurbaha jooga ee YouTube-ka iyo Facebook lahu maalinta ugu lacag badan yihiin dadka muqdisho jooga ee qaraxu maalin walba laayo ba isweydiisay waa maalinta masiiba dhacdo ee dad badan dhinto isagana lacag badan baa soo gashay kan view-ga kan guriga Yurub ku xiran ee guriga ku dhex jiray guriga ka soo qalinay kaamanka qaxootiga u jiro view-ga maalinta qarax dhaco view badan buu helaa lacag badan buu sameeyay adigana geeriyo waxa ku taala masiibo adigana geeriyo masiiba ku taala oo reer dhan baa dabkoodii damay oo calankoodii dhacay oo qofkii u shaqeynayay maalintaas uu dhintay oo qarax lagu dilay kii dibadda joogayna maalintaa wuxuu helay lacag badan oo imisa ay daawaday 450 kun oo qof oo 700 kun oo qof ay daawaday wuxuu ku ducaysanayaa maalin walba qaraxa ka dhaco Soomaaliya saasay ku ducaysan dadka qurbood ee view-ga YouTube kale dadka view-ga lacagta YouTube ka sameeyay iyo Facebook waxay ku ducaystaan maalin kasta ilaahay qaraxa ka rido Soomaaliya oo dagaal ha dhaco yay ku ducaystaan sababtoo dad badan baa daawada ninka qofka dhibtu gaarsan waa qofka gudaha wadankii joogay
qofka gudaha wadankii joogay qofka dhibku gaaraysa wey dadka reer muqdisho ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinka baryayaa maalin khamiis weeyaan jimca soo galay ilaahay inuu dhibaatada iyo qaraxan iyo masiibadan maalin walba dhacay oo idinka dulqaado rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan idinka baryayaa in ilaahay dhibaatada idinka wada dulqaado ilaahay subxaanahu wa tacaala intii ku dhimateen inuu allah naxariiso wixii dhibaateynayo ummadaas ilaahay ama mucaarad ha noqdo ama muxaafid ha noqdo kuwa doonaba ha noqdee ummadaas Soomaaliyeed ee muqdisho degan ee dhibaatada maalin walba lagu hayo kuwa doona ha noqdo ilaahum in adeerkay noqdo ilaahay ummadaas ka qabto ilaahay ummadaas ka qabto waxa weeyaan ugu dambeyn waxaan rabaa inaan idinka digo oon mar kale idin sheegaya berito qaraxyo badan ayaa la rabaa in laga rido goobta mudaharaadka oo dad badan ku dhintaan labada dhinacna mucaarad iyo muxaafid ama dawlad ha noqoto ama mucaarad ha noqdo idin ma kala aaba yeelayaan midba midka kale uu rabaa inuu ku eedeeyo laakiin waxa ku dhimanaya waa dadkaas shacabka ayaa ku dhimanaya ummadda Soomaaliyeed ee muqdisho joogo berito banaanbaxaas ha isku tagina hana agmarina is ilaaliya ilaahay haydan xafido iska soo cibaadaysta salaadiina markaad ka soo noqotaan aad soo cibaadaystaan businessdiina furto iska baashaalo iska ducaysta meeshaas berito qaraxyo badan baa ka dhacaya mucaarad iyo muxaafidna idin ma kala aaba yeelayaan ama dawladaha ku jiro ama dawladaha ka soo horjeeda idin ma kala aaba yeelayaan nimankan mucaaradka ee qaylinaya iyo nimankan farmaajo adigana in adeero waqtigaaga waa dhamaaday doorasho iclaami xukunka waxa jira musharax baan ahay laftaadu inaad ku sii dhigtid ma aha xaqiiqada dhabta intaad soo istaagtay inaad tiraahid waqtigayga waa dhamaaday laakiin musharax baan ahay calafkaaga aad cuntid weeye inaad sii macangagtid maaha tanaasul badan waa inaad samaysid nimankan mucaaradka sheeganayona war waxa weeyaan idinkuna daalimiin baatiin waynu is ognahay waynu is xog ognahay ilma aad dhasheen wadankan idin ma joogo ilma aad dhasheen wadankan ma idin joogo jaamacad ay wax ku baranayaan laakiin ka aad dilaysaan dhimanaya waa ilma islaan kale masaakiin ay dhasho u soo xoogsi tagay waa ilmo masaakiina oo nin kale u soo xoogsi tagay berita rabtaan inaad agoon ka dhigtaan mucaarad iyo muxaafido ummadda reer muqdisho berito mudaharaadkaas dhiig badan baa ku daadanaya qaraxyo badan baana ka dhacaya eedana waxa la saari doonaa la oran doonaa al-shabaab niman la yiraahdo way sheegan doonaan laakiin mucaarad iyo muxaafid midba mid buu ku tuuraya kuwa mucaaradka idin leynaya kuwa dawladda idin leynaya cid idin abayeelisa ma jirto dameer bakhtiye baad agtooda ka wadatiin dameer bakhtiye ayaa agtooda ka wadatiin okay suusa shukari waan ku tuuraya mar dhow hal dignin baan ku siinaya yes xasan sheekh mucaarad baan ku ahaa waa ku mudaharaada waana ka soo horjeesta farmaajana mucaarad baan ku ahay haddaan kuu sheegaya laakiin haddaad darda ma soo qortay waa ku tuuraya mid kale soo samaysa walaal allah ku barakeeyo dhagaysta ummadda reer muqdisho berita meesha dhiig badan baa ka daadanaya digniintan hal is wada gaarsiiyo hana laga taxadaro mudaharaadkaas berito yaan la isku tagin dhiig badan baa ka daadanaya qaraxyaa la sameynaya waa la iskugu hoos qarinayaa waalidiinta Soomaaliyeed ee reer muqdisho ku sugan oo ilmihiina berita mudaharaadka ka ilaaliya idinkuna is ilaaliya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh